Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Caruuray waxaa la yidhi hadda ka hor waxaa jiri jiray qoys. Waxa ay lahaayeen xoolo aad iyo aad u fara badan, geel iyo lo iyo ariba ka kooban. Waxaa dhacday abaar daran, midaasoo dadkii xoolihii dhammaanba salafatay oo laysay. Kadibna reerkii waxay go'aansadeen inay abaartan ka guuraan oo meel naqal iyo roob leh raadaan. Markii ay guurayeen ayaa neef wan ah oo macaluul darteed uga haray xoolihii raaci waayey. Ayagana waa ay ka guureen oo ihtimaam ama danka ma aysan lahayn wankaas kici waayey. Wankiina waxa uu ku soo haray duurkii cidlada ahaa. Ilaahay ayuu baryay, ilaahayow dadkii waa iga guureen ee ilaalin jiray, adiga ayaa iga wakiil ah, roob iyo cabsidaba iga badbaadi. Habeen markii reerkiisii maqnaayeen, habeenkii dambe waxaa da'ay roob xoog leh oo dhulkii oo dhan uu ku qaboobay. Wankiina wuxuu iska cunayay cawskii oo naqii soo baxay, biyihiina waa iska cabayay. Ceelashii laga guurayna biyo ayay yeesheen. Wankii oo ladan oo weynaaday cayilay ayaa waxaa u timid dawaco. Waxay tiraahday, wanow waxaan doonayaa shaqaysii. Waxaan ku doonayaa in aan barigan barwaaqada leh kugula noolaado. Asagana wuxuu uga tegay ceel oo wuxuu yiraahday ceelkan ii waardiyey. Way ka ogolaatay. Halkaas ayay ka shaqo bilowday. In muddo ah markii ay meeshii joogeen ayaa maalinkii dambe dawacadii waxa uu imaaday dhurwaay. Sidii uu soo socday toos wuxuu soo abaaray dawacadii. Waxa uu yiraahday, dawaco waxaan doonayaa biyo inaan cabo, ceelkan ka cabo. Ayadana waxay u jawaabtay, ceelkan waxa iska leh wan. Wuu qoslay, ma wan waaba hilib iyo biyo isku hel. U wac wankii hadduu iga celin karo biyahan ha arkee. Dawacadiina way dhawaaqday, waxay tiraahday, wanow ceelkaagii la dudumi oo lagu kaadkaadi. Wankii ayaa codkii dawacadii maqlay oo orod isu soo taabtay. Waxa uu soo cararay dhankii ceelkii asaga oranayo, baridayda weyn, macaashayda weyn, buluq buluq ma beenba. Wuxuuna soo gaaray dhurwaygii, waxayna isku qaadeen dagaal. Dhurwaygii markii uu xanuunsaday ee laga adkaaday ayuu cararay, asagoo dhahay balaayo ku aragtay wax wan ma ahan, xaguu ku noolaan jiray. Kadibna waxa uu yiraahday, dawaco hawshaada iska sii wado. Maalinkii xigtay ayaa waxaa dawacadii u yimid shabeel. Shabeelkiina soo socday wuxuu u imaaday dawacadii. Waxa uu ku yiraahday, dawaco biyaha ayaan doonayaa inaan cabo. Waxay tiraahday, biyaha waa inuu kuu fasaxaa wankii iska lahaa. Wuxuu yiraahday, ma wan ayaa aniga biyahan iga celin karo. U wac hadduu iga celin karo waxaan arkee. Ayadana way dhawaaqday oo waxay tiraahday, wanow ceelkaagii la dudumi oo lagu kaadkaadi. Meel dheer ayuu ka maqlay uuna soo orday asaga oranayo, baridayda weyn, macaashayda weyn, buluq buluq ma beenba. Halkaas ayaa shabeelkii iyo wankii isku fara saareen. Sidii si la mid ah ayaa shabeelkii laga adkaaday. Intii uu xanuunsaday ayuu ka cararay meeshii, asagoo dhahay waxaan intuu ku noolaan jiray. Hawshii ayaa sidii ku sii socotay. Maalmo kadib waxaa meeshii soo gaaray libaax. Libaaxii soo socday dawacadii ayuu imaaday. Waxa uu yiraahday, dawaco waxaan doonayaa biyo inaan cabo. Waxay tiraahday, biyahan waxaa iska leh wan. Wuxuu yiraahday, wan miyaa biyo iga celin kara? Nafsadiisa ayuusan iga badbaadin karin. U wac intaan asaga dilo oon cuno ayaan biyahana isaga dejinayaa. Dawacadiina sidii caadadii ahayd ayay dhawaaqday ayadoo oranayso, wanow ceelkaagii la dudumi oo lagu kaadkaadi. Wankiina wuu soo orday asaga oranayo, baridayda weyn, macaashayda weyn, buluq buluq ma beenba. Wuxuuna yimid libaaxii. Halkaas wayna isku dirireen. Libaaxii waa laga adkaaday. Markii laga adkaaday oo xanuunsaday ayuu ka cararay meeshii, asagoo dhahay balaayo ku aragtay wuxuu intuu ku noolaan jiray. Wanba ma ahan, wanankii aan aqoon jirnay ma ahan. Wixii maalintaas ka dambeysay, wankii wuxuu ku noolaa meeshiisii si nabadgelyo ah. Oo barigii asaga ayaa xoreysay. Ceelkiisana xayawaan aan ka codsan biyo kama uusan cabi jirin. Marka caruuray, sheekadan maxaynu ka baranaynaa? Sheekadan waxaynu ka baranaynaa qofkii Ilaahay tala saarta oo wakiisho balaayo oo dhan waa uu ka xijaabayaa. Ayadoo aan ognahay wanka in ay dhurwayga iyo shabeelka iyo libaaxa ay cunaan,
ayaa haddana markii uu wankii ilaahay tala saartay, ilaahayna waxa uu siiyey awood weyn, taas oo xayawaanaadka ugu adkaan karo. Marka mar walba ay caruuray adigu ilaahay tala saaratid, dhib walba iyo balaayo walba ilaahay waa uu ka badbaadinayaa.